artiste ama farshaxaniste. Waa sawir gacmeed, waa xirfad sawir gacmeed ah. farshaxanka wuu kala baxaa. marka ani waxaan sameeyaa qaybtiisa oo sawir gacmeedka. maya iskuul umaan gelin meel oo gaar ah aniga aan u tago aan ka bartay ma jirto. waxay iska ahaayeen wax oo yaraantayda aan iska jeclaa. markii hiwaayada ii noqotay hiwaayad kadibna waxay usii gudubtay inay xirfad iyo shaqo ii noqoto. waa la baran karaa ilaa heer jaamacadeena loo soo bixi karaa. inkastoo ay dadka intooda ugu badan farshaxanistayaasha dalkeena ay joogaan ay yihiin dad iyaga yani iskooda ay isbareen. artist walba muhiimad ay u leedahay, yani si shakhsi ahaan way u lahaan kartaa, si guud ahaaneed oo bulsho ahaaneedna muhiimad way u lahaan karaa farshaxanka. shakhsi ahaan aniga ka shakhsi ahaan muhiimada ii leeyahay waxaa ah marka ugu horeyso horta waa ii shaqo. shaqadeyda hadda oo tooska waa farshaxan. muhiimada kale waxaa waaye waa wax oo markaas adiga fikirkaaga aad kusoo gudbin kartid. wax oo yani shaqo qurxoon oo adiga markaad sameysid kalsooni ku siinayso waaye. dhan walba loo eegi karaa oo ay faa'iido u leeyahay farshaxanka. runtii si markii loo fiiriyo aad uma fahansana. iska sawir gacanta laga sameeyay u maleeyaan ilaa heerku gaari karo in yani wacyigelin lagu sameeyo, taariikh badan lagu keydiyo. uma fahansana ilaa heerkaas inuu wax oo dad gaar ah lahaan karaan yani ay kusoo dhalaali karaan inuu yahay yani uma maleynayaan. farshaxanka inta ugu badan waa hibo. way jirtaa dad oo baranayaan iyagoo hibona u lahayn, waana dhici kartaa qof inuu barto asagoo hibo u lahayn laakiin ma barno. ani hibadu waxaa u fahansanahay inay tahay waxaan horta in lagugu abuuro inaad jeclaatid. لأنه waxaad jeclaato haddii koodi kugu adag yihiin xataa mar walba aad kusii celcelisid way fududaanayaan. marka wax walba oo la barto processkaasaa loo maraa ku celceliskaas. marka muhiimada waxaa waaye hibada la sheegaba qofku kuma dhasho asagoo wax sawiri karo, laakiin wuxuu ku dhashaa ama يعني وقتي أو نلاشي سكمل إلهي يعني كل أورا إنه جعل هذا وحاس إنه برد. أنت عن حسوسا كرب وحوا إسكس سويراي أو عن يرى، لكن إسك عيار إيو باشال هاد وح أني عن أفهم سنة إلا هير حرفد إيو شقاء وما نفهم سنة المكاس. لكن مركان سوي ناني oo aan sameynayay dad aan la kulmayay oo waxaan fahansan oo iga sheekeynayay si fahmay waxaan inay muhiimad leeyihiin. marka waan go'aansaday inaan ku sii socdo oo aan horumariyo. waxay ahayd mar aan fasalka lixaad ahaa. marka anaga xisad farshaxan maan qaadan jirin, halkaas maalin aan qaadanay. macalinka marka wuxuu soo sameeyay ama mooyin asi soo sameeyay ama meel kale keenay, laakiin wuxuu noo keenay sawir oo guri. ani marka horaan iskaga fafalaanay sawirka, marka fahan hore waa u lahaa sawirkii. markii sidiisaan u sameeyay markii loo fiiriyay ilmaha kale ardayda kale, macalinka marka wuu arkay sawirkayga wuu u imaaday marka wuu igu dhiirigeliyay. meeshaasaan ka bilaabay marka inaan ku dhiirado maalin walba inaan sawir sameeyo. mar walba waan arkaa dad yani wax qofka markuu wax qurxan arko asigana wuxuu isdhahaa way fiicnaan lahayd adigana waxaas inaad sameysid. markii inta ugu badan waan arkaa dad dhahayaan ma jiraa meel lagu barto farshaxanka, intee ku baratay inaan bartaan rabaa. marka way ku badan yihiin runtii bulshada dad rabaan inay farshaxanka bartaan. marka ani tusaalaha markaan bilaabayay meel umaan tagin. qasab ma inaad meel u tagtid iskuul u gashid, adiga isbari karo. hadda internet wax walba laga helaa koorsadan oo dhameystiran oo maxaa la dhahaa oo farshaxanka oo beginner ah ka heli kartaa. marka qofkii rabo oo ka go'an tahay inuu farshaxanka barto meel walba ka helaa oo internetka horta dadka bara rabaan farshaxanka waxaan ku dhiirigelin lahaa horta maadaama uu hamiga ku jiro inay bartaan farshaxanka. YouTube kaad gali kartaa, casharaad ka heli kartaa. maanta tusaale ahaan sawiraad soo qaadan kartaa, isla sawirkeeda isku day kartaa inaad sameysid. muhiimadu waxaa waaye waa practice-ka, waa joogteynta maalin walba inaad sawir sameysid.
ani sawirka inaan sameeyo markaan go'aansanayo inaan joogteeyo waxaan ku bilaabay maalintii inaan hal sawir sameeyo maalin hal sawir inaan ku taataaqsado oo yacni sawir dhammaystiran maalin walba aan soo saaro marka sidii maalin walba aan sawir u sameynayay waan dareemay yani 3 bilood gudahooda ku dareemayba isbedel marka hadii hamiga kugu jiro dadaal una dulqaado yani isla markii qofka inuu dhaha ma ahan sawir maanta hadaad samaysid oo ka qaldamo isla markii natiijo degdeg ah inaad filatid ma aha natiijadu waxay ku imaanay joogteynta